بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف بي maanta noo tahay haddaanu nahay Telesom Group Foundation inaanu ku maamusno muasasada Aflax gaar ahaan ardayda ku guuleysatay martabada u sarreysa ama heerka koowaad baabuurkan agteena taagan inay ardayda lagu abaal mariyo maadaama ay ku guuleysatay tartankii Qur'aan Kariimka ahaa iyo muasasada Aflax ujeedadu waxay tahay inaanu dhiiri gelino barashada Qur'aanka Kariimka iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kitaabkiisa kor loo qaado waxa ugu wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhulkan dushiisa keenay ugu fadli badan waa Qur'aanka cid ugu khayr badan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhulkan dushiisa dhagayna marka laga tago rusushii waa dadka Qur'aanka bartay iyo kuwa bara rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu lahaa khayrukum man ta'allama al-Qur'aana wa 'allamahu kuwa idinku khayrka badan lehi waa kuwa Qur'aanka barta ama bara marka in kuwii Qur'aanka baranayay aynu maanta ku maamusno baabuurkan iyo jaayizada kale oo wanaagsan waxay tusaysaa oo tusaale cad u tahay qiimaha waqtigeena ku leeyahay Qur'aanka in Qur'aanka la weyneeyo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kalaamkiisa inaynu weynaanaana wuxuu noqonayaa oo keenaya Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in raalli ahaanshihiisa inaynu helo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu naga aqbalo ardaydaana ka aqbalo sidoo kale waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu barakeeyo inanta ku guuleysatay waxaan u rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu ka dhigo kuwa maalinta qiyaamaha la soo saaro iyagoo Qur'aanka akhriyaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.